السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو سكسب أكاديمي maanta cashirkeena waxaa ku saabsan yahay aan qaadanaynaa dhowr cibaan oo kala ah. Cibaanka ugu horeeya waa text cases. Intaan horta u guda galin fadlan subscribe saar una share gari asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan. Marka ugu horeysa waxaan soo kacsanayaa Winword-kayga ama Word-ka ama Microsoft Word 2010 kadibna waxaan soo gashanayaa qoraal iska sample ah. Qoraalka markaan soo gelinayo sida caadiyan aan kusoo gelinayna is equal rounding cashiradeena hore ayaan kusoo qaadanay. kadibna waxaan leeyahay bracket ayaan furayaa, bracket ayaan xirayaa, kadibna enter ayaan leeyahay. Waxay ii soo galaato qoraal iska sample ah. Waxaan rabaa qoraalkani dhammaantiis inaan ka dhigo capital letter. Cibaanka aan qaadanayno waa text cases. Qoraalka ina marxaladihiisa aan kala bedelno. Marka ugu horeysa qoraalka select garayso. Markaad select garaysato waxaad imaanaysaa qaybta ay ku qoran tahay font groupka, kadibna waxaad dooranaysaa labada a ee istaala. Waxaa la yiraahdaa change case and text case. Kadibna waxaan ka dooranayaa uppercase oo ah capital letter. sidaad u jeedo qoraalkayga dhan wuxuu noqday wada capital letter. haddana waan select gareynayaa isla meesha ayaan ku laabanayaa oo waxaan ka dhigayaa lower case oo ah small letters xarfo yar yar. haddana waan ku noqonayaa waxaan ka dhigayaa sentence cases sida caadi grammarka ayuu u saxayaa oo waa ka wax qaladaada kama taagnaa. waayahay qodobkaasi waxaan ku xijinayaa oo qodobka labaad ee cibaanka aan ka qaadanayn wuxuu yahay comment. qoraal baa qof kuu soo diray, qoraalkii ayaa wax ka qaldamay ama waxay ka qaldan yihiin. waxaad rabtaa qoraalka qofka inaad u celiso adigoo inta ka qaldan aad calaameynayso. waxaad ku dhufanaysaa horta meesha aad rabto inaad calaamayso. markaad select garayso kadib waxaad ku dhufanaysaa view tabka, kadibna new comment ayaad ka dooranaysaa. new comment markaad ka doorato wuxuu kuu soo saarayaa meesha aad calaamaysatay, kadibna waxaad ku qoraysaa oo waxaad dhigaysaa wax ka bedel. qofkana sidii ayay ugu diraysaa markuu kiciyo sidaan ayuu arkayaa intaas inay qaldan tahay oo calaamad uu soo saaray. dhowr commentin waa soo gashan kartaa haddii aad u baahan tahay, ama haddaa rabto commentiga marka lagu soo diro adigo delete ayay iska leeysaa oo ka deleedaysaa meesha. sidaas ayuu kugu noqonayaa mid saxan oo kaaga baxay meesha. waxaan rabaa qodobka kale aan ku xijiyaa column. qoraalkan sideen u kala jaraya. horta qoraalka aan badsano oo control C aan dhaho ilaa ay 2 page aan geeyo. marka ilaa 2 page aad geyso waxaad ku dhufanaysaa halkay ku qoran tahay page layout. page layout markaad ka doorato waxaad arkaysaa sida groupiska, kadibna column ka dooro, kadibna waxaad dhigaysaa 2 columns. qoraalkan wuxuu noqonayaa 2 column oo hal warqadkooda yaalaan. waxaan rabaa marka inaan 2 calaamad inaan u dhexeysiiyo. waxaan ka dooranayaa columnska, more columns ayaan raadsanayaa, kadibna waxaan jeega saarayaa line between. hadda waxaan aragtaa labadii qoraal dhexdooda calaamad ayaa u dhexeysa. sidaas la mid waxaa ka dhigin kartaa 3 column oo halkaas ay ku dhufanaysaa oo waxaad ka dhiganaysaa 3 columns. sidaas la mid asigana wuxuu gelinayaa calaamad xariiq dheer ah. waxaan kusoo laabanayaa marka 1 column ayaan ka dhiganayaa oo sidaa ah. qodobka kale aan ku xijinayo wuxuu yahay increase indentation. muxuu yahay? qoraalkan aad adiga diyaarsatay waxaad u baahan tahay inaad sawir aad soo gashato. sideen kusoo gelinayaa sawir? waxaan tagayaa halkan ugu horeysa, kadib waxaan leeyahay control M oo inta sawirka aan soo gelinaya ayaan calaameysanayaa. kadibna waxaan tagayaa insert tabka, kadib waxaan ka dooranayaa shapes, kadibna waxaan soo qaadanayaa rectangularka ama round rectangularka ay soo qaadanaysaa. labada mid waa isku mid, halkaas ay imaanaysaa ku jiidaysaa. waxaan u baahanahay hadda sawirka inaan soo geliyo. waxaan ku dhufanayaa shape markaan ku dhufto waxaan kasii dooranayaa pictures. wuxuu geenayaa marka halka desktopka ama pictureska, kadibna desktop aan ka dooranayaa. sawiradeeda halkan ay ii saaran yihiin aniga, kadibna kan FB aan ku dhufanayaa okay ayaan leeyahay. waxaa aragtaa hadda sawir teaser ay ii soo galay. calaamada wareega haddaan rabo inaan ka qaado waxaan ku dhufanayaa shape outline, no outline ayaan ka dooranaya meeshaasi, ama outline khafiif ayaad ka dooranaysaa oo halkii ku laabanaysaa oo waxaad leedahay outline khafiif ah la isiiyo. qodobkeena kale wuxuu yahay find and replace. qoraal ayaan rabaa inaan meeshaan kasoo dhex saarto misena aan wax aan ku bedelo. horta waxaan ku hormarayaa find 2 siyaabood ayaa loo raadiyaa. midna waa shortcut, midna waa doorasho. halkan ayaad ku dhufanaysaa geeska editing groupka, click markaa ku siiso waxa ku soo baxaya navigation boxkani, ama control F ayaa dhigaysaa si kugu soo baxa navigation. ereyga waxaan raadinayaa hadda aniga log ah. erey walbo log ah wuxuu ii saarayaa calaamad jaala ah. sidaas marka waxaa loo raadiyaa erey markaad rabto magac
iyo wax walba aad raadinayso. Tusaale kale hadda also haddaan rabo inaan raadiyo also calaamad jaale ayuu ii saaraya. Waxaan rabaa marka hadda ereygan loog ah inaan ku bedelo magac kale. Waxaan samaynayaa halkaas replace ayaan ku dhufanayaa ama control H ayaan leeyahay oo wuxuu ii soo saaraa xarafka ugu dambeeyay aan raadiyo. Laakiin mar waan tirtirayaa loog ayaan ka dhigayaa. Halkan waxaan ka dhigayaa marka succeed. Kadib waxaan leeyahay replace all. waxaan leeyahay marka hal replacement ayaan sameeyay marabta ayaan leeyahay okay ayaan leeyahay marka okay markaan dhaho wuxuu i dhahayaa marka 34 replacement la sameeyay. Halka wuxuu ahaa marka halka xaba aniga ku bedelay okay yes ayaan leeyahay marka 35 ayuu ka dhigaadane waa tan marka. waxaan aragtaa hadda waxaan raadinayaa ereyga loog ah wax loog la yiraahdo kuma jiro hadda qoraalkiisa. laakiin waxaan ku bedelaa wuxuu ahaa succeed. ma aragtaa hadda sidaas waxaa loo isticmaalaa find and replace qoraal inaad soo raadiso misana qoraal kale aad ku bedesho. qodobka kale aan qaadanayno wuxuu yahay bullets. waxaad rabtaa inaad qorato dalab order ah control N ayaan leeyahay sabab shaashada cusub u soo saarto. waxaad rabtaa inaad qorato dalab dukaaneed ama dalab waxay noqdaba ama xaafada ama dukaan ama baqaar. waxaan samaysanayaa horta dukaanka magaciisa dukaanka ala aamin ayaan leeyahay. qoraalka dhexda ayaan geysanayaa bold ayaan ka dhiganayaa jiif ayaan ka dhiganayaa hoos ayaan ka xariiqanayaa kadibna waxaan tagayaa marka sidaas ku sameeyay. waxaad ka soo ogaan kartaa casharadii hore ee ku soo dhaafay. fadlan dib u laabaya soo fiirso si aad u fahanto casharkan. waxaan dooranayaa marka calaamad bullet ah. bulletka halkaas ay ka dooranay paragraph hadba kuwan midka rabta aad qaadan kartaa. kana kaliya ku siinayaa. waxaan leeyahay maanta dukaanka wuxuu u baahan yahay bagaashka ayaa qaan enter ayaan leeyahay. enter markaan waxaa laga baahan yahay bagaashka inaan tiriyo. bagaashka maxaa hoos imaanaya tab ayaan leeyahay saa u bedelo. kadib waxaan leeyahay please baastada ayaa kamid ah wax go'ay sokorta ayaa kamid ah enter ayaan leeyahay. marka calaamadii bagaashka amal inaan ku laabtaa rabaa dalab kale ayaan qoran rabaa enter kale ayaa sii leedahay. waxaad u baahan tahay marka dharki ayaa ka go'ay tab ayaa leedahay hadana waa bedelaysaa oo waxaad u baahan tahay marka fanaanado enter ayaan leeyahay. fanaanada magaceeda sii sheegtaa rabtaa waxaad sii taabanaysaa dan tab kaleeto. fanaanadaha waxaan u baahanahay anigu gacmo gaab oo kaleeto sidaas ku bedel. calaamadaada hore haddaad rabto inaad noqoto interta ayaa wadaysaa. sidaas marka waxaad ku samaysan kartaa marka order saxan oo ah dalab. si kale hadda mobile ayaan leeyahay mobileka ayaa ka maqan qaybta mobileka inter ayaan leeyahay tab ayaan leeyahay. mobilada maqan oo go'an waa mobilada Samsung-ka. inter tab ayaan sii leeyahay. mobilada waxaa loo baahan yahay A10-ka A10s ayaa loo baahan yahay. sidaas oo kale hadana waxaan dhahayaa marka inter kaleeto Tecno ayaa loo baahan yahay. inter ayaa leedahay tab sii leedahay. Tecno magacyo ayuu kala leeyahay 100 Tecno magac ayuu kala leeyahay 100 R oo kaleeto. sidaas marka waa sidii saxda ah oo dharka ku samaysan. imaankeena ugu dambeeyaan qaadanayno wuxuu yahay insert special sample. special sample wuxuu yahay waxaad rabtaa inaad qorto calaamado imtixaanka sax iyo qaladka oo kaleeto. waxaad rabtaa hadana inaad qorto waxyaabaha shortcut-yada ah. tusaale marka waxaan rabaa marka imtixaan ama diyaarinaya ka soo qaadaya sampleska maxay horta waxaan leeyahay ku qor sax hadii ay tahay bracket ay furaa xiraya dhaxda maxaa lagu talagalay calaamad saxda. waxaan ku dhufanayaa insertiga symbols ayaan ka dooranayaa anigu halkaan ay saaran tahay weedinga mujida click ku sii hore ka galaysa. ama hadii kale halkaan ku dhufo markaad ku dhufto meeshaan ma aragtaa inta fur waxaad ka dooranaysaa weedingi. marka ka doorato calaamadaha waa kuwan halkaan ku soo galayaan ayagoo buux ah sax iyo qaladka kulli halkaan ku soo galayaan. waatana halkaas ayaad ka wada helaysaa. sidaas la mid ah hadana waxaad u baahan tahay calaamad dollarka ah oo haysataa oo shift number 4 ayaad dhehaysaa. bal laakiin hadii aad u baahan calaamada boundiga insertiga tagaysaa halkaan symbols ku dhufo mo symbols leh halkaan ka qaad weedingiya oo waxaad tagaysaa kor intaad tagto normal text iska leh kadib calaamada boundiga click ku sii insert leh waxay ku soo gashay weeyaan. sidoo kale hadana waxaan u baahanahay tusaale kaleeto markaad qorayso xabiibkeena barakeysan nabi maxamed
nabi maxamed. Aniga hadda maxamed abdulqaadir wixii ii soo qabanayaa magacayga, wixii ii soo qabanaya maxamed haddaan dhaho nabi maxamed. waxaa u baahan tahay marka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aad inaad geliso FDF ayaad leedahay, kadibna alter x ayaa leedahay. hadda waxaa aragtaa meeshaas waxaa kuu soo galay waxay tahay sallallahu calayhi wasalam, nabiga asigoo carabi u qoran. sidaas oo kale haddii aan dhaho FD oo kaleeto alter x aad taabto waxay ii soo galayo bismillaahi raxmaani raxiim ayaa ku soo galayso. kadibna intaa calaamaysato dhexda geyso, fartan waad ku darsan kartaa oo waaweynin kartaa. waa taas bismillaahi raxmaani raxiim oo caadi ah ayaa kuu soo gashay. fadlan subscribe saar haddaad ku cusubtahay janaalkeena, asxaabtaana gaarsii si ugu faa'iidaystaan.